barasabka gobolka Tugdheer Xamse Maxamed Cabdi sidoo kale taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Tugdheer iyo suduwaha wasaaradda kheyraadka biyaha gobolka Tugdheer ayaa waxay si rasmi ah u soo aftireen khilaaf ka taagnaa riigbiyooda fadhigiisu yahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer kaasoo hore loo sheegay riigaasi iyo sidoo kale qalabkiisa ay leedahay xukuumadda Somaliland ayaa baarid dheer kadib waxay ogaatay in qalabkani aan lahayn dawladda Somaliland waxaana si rasmi ah loogu wareejiyay Axmed Xasan Ilkaas oo wakiilka hantilaha riigani ugu horeyntii halkaas waxa ka hadlay suduwaha wasaaradda kheyraadka biyaha ee gobolka Tugdheer iyo sidoo kale taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Tugdheer iyagoona faahfaahin ka bixiyay riigan iyo sidoo kale maraaxilka uu soo maray halkan dibmaalin dhawteed maalintii aynu la wareegnay wasaaradahaan iyo xukuumadahaan la wareegay la yiri gacan ku hayn bay noqonaysaa hantidan in ay hanti qaran tahay iyo hanti uu leeyahay Falaax Al-Ahbaabi oo Imaaraatiya bifadl Ilaahi way soo dhamaatay arintaasi waxaanay cadaatay arintaasi inay hantidan uu leeyahay ninka la yiraahdo Falaax Al-Ahbaabi oo Imaaraati national oo muwaadin Imaaraatiga oo hanti gaar uu leeyahay oo private laakiin sidii loogu adeegayo loogu shaqeynayo ummadda reer Somaliland dawladahaan iyo gobol ahaan oo gudoomiyaha gobolku mas'uul ka yahay aanu u haynay maanta way soo dhamaatay arintaasi waxaana ku wareejinaa gudoomiyaha gobolku uu ka wakiil yahay dawladda dhexe madaxweynaha iyo wasiirka uu wakiiliyay inuu ku wareejiyo ninka la soo wakiishay wakaaladda u haysta mas'uulka imika ka Axmed Xasan mas'uuliyadan aynu halkan alaabtan iyo agabkan oo hore gacanta aynu ugu haynay gobol ahaan iyo xukuumad ahaanba ay ku soo gabagabowday inuu hanti shirkad ay leedahay oo bareefada ay tahay qarankuna ka faa'iideysanayay markay nooca ku cadaatana xukuumadda go'aankeedii ay ku wareejinayso hantiilihii iyo cidii wakiilka u ahayd mar haddii la soo cadeeyay inay hantidii wakiilkii lagu wareejiyo imikana waxaan diyaar u nahay inaan agabkii aynu dhex joogno aanu gacanta ka saaro u tirino inta kale barasabka gobolka Tugdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo sidoo kale wakiilka riigbiyoodka Axmed Xasan Ilkaas oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxay tilmaameen in si rasmi ah la wareegeen riigaasi gacan ku hayntiisa halkan maanta u taaganahay in aynu agabkan ama qalabkan biyaha ee wasaaradda horumarinta biyaha ee Jamhuuriyadda Somaliland wasiirkeeda uu noo igmaday inaanu ku wareejino shirkadda Al-Falaax iyada oo ay soo baxday markii hore wakiilkii hore ee shirkaddan oo goobtan aynu taaganay maalintii hore ka sheegay in qalabkan ay leedahay dawladdu oo ay dawladdu shirkadda maaragtay ku wareejisay hubin dheer kadib waxa cadaatay in qalabkan ay leedahay shirkadda Al-Falaax sida daradeed anagoo fulinayna amarkii wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Salmaan Yuusuf Cali Koore oo na soo faray inaanu ku wareejino wakiilka cusub ee shirkadda Axmed Ilkaas agabkan si rasmi ayaanu maanta ugu wareejinay xooshkan aan dhex joognaa waa xooshkii wasaaradda kheyraadka biyaha iyo ninkii shirkaddan lahaa markii hore baaritaankaas socdayna wuxuu lahaa in hantidan ay dawladdu leedahay iyo inuu bareefad yahay oo nin muwaadin ka Imaaraadka Carabta uu leeyahay hawshaasi fadilaahi way soo dhamaatay waxaanay ku soo dhamaatay oo aanu mahad u celinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiirka kheyraadka biyaha markii aanu si qoto dheer hawsha u baadhnay ee loo baaday anagoo si wada jiroodii muwaadiniina waxa cadaatay in hawshan ay iska leeyahay ninkaas Al-Falaax Al-Ahbaabi inuu leeyahay hantidan hawshii ay ku soo dhamaatay markii horena dawladda gacanta ku haysay hantidii maanta anigoo mas'uulkii la wareegay hantidii wakiilka uga ahaa Falaax Al-Ahbaabi ayaan doonayaa inaan halkan ka cadeeyo inaan uga mahad noqdo xukuumadda dhamaanteed sida degan ee aanu hawsha uga wada shaqeynay ee deganaashiyaha leh ee loo hubiyay hantidaasi inay hanti qaran ku leeyahay ay tahay iyo hanti qof leeyahay inay tahay wa Khalid Bakeyle wararka muqbahiya caalamiga Star TV Burco.